dhalinyaradan oo kamid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Yemen ayaa fariimo iyo codsiyo kala duwan u diraya dawladda Soomaaliya. Dhalinyaradan oo tiradooda kor u dhaafaysa ilaa 60 dhalinyaro ah ayaa ku noolaa wadankan Yemen muddo dhowr iyo 10 sano ah iyagoo markii hore ka soo cararay dhibaatada wadanka ka jirtay sanadihii tagay. Dhalinyaradan waxa ay kamid ahaayeen dhalinyarada nolol maalmeedkooda ka dhacsan jiray wadanka Yemen siyaabo kala duwan uga shaqeysan jiray markuu wadanka Yemen nabad u ahaa. Marka aad la kulanto waxa ay ku sheegeen in ay jecel yihiin in wadankoodii ku laabtaan. Dhalinyaradan oo codsiyo u diraya dawladda Soomaaliya ayagoo codsanaya in ay kamid noqdaan ciidanka Soomaaliya si ay u difaacaan wadankooda diyaarna u yihiin xilliga taagan. Ayagoo ay ka khiroodeen hawsha ay wado dawladda Soomaaliya iyo waliba safiirka oo goordhow loo soo magacaabay dalkan Yemen. Mar aan la kulanay qaybo kamid ah dhalinyaradan oo xamaasad ka muuqatay waxay sheegeen in waqtigoodii la joogo xilligan diyaar ay u yihiin in ay kamid noqdaan ciidamada Soomaaliya. Marka ugu horeysa waxaan salaameynaa madaxweynaha dalka Soomaaliya, waxaan salaameynaa ra'iisul wasaaraha, waxaan kala salaameynaa intiiba dawladdu u shaqeyso ay xilka hayso walaalahayna dhammaan ayaan salaameynaa. Marka ugu horeysa aniga waxaan diyaar u nahay wax dhib oo meeshaan oo nagu qasbay wax ma jiro alxamdulillaah rabbil caalamiin, laakiin waxaan jeclaysanay aniga aan diyaar u nahay inaan wadankeena aan u shaqeyno aan difaacno intaba. dawladda ugu horeysa waxaan uga baahanahay inay naga qaabisho meeshaan si dhaqsiyaha badan. tan labaadna meel alla meesha ay geyso ayaan diyaar u nahay. waxaan rabnaa inaan noqono ciidan qaas ah oo dalka difaaca, diinta difaaca, shacabkooda u khidmeeya, calankooda u shaqeeya. انت بوان دونينا انا نقول ان شاء الله باذن الله. محمد سيف ثابت waxaan jiraa $7 wallahi waa aragnay wadan qurbo wuxuu yahay in badan aan soo shaqeynayno dalka Yemen. maanta waxaan diyaar u nahay dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena inaan difaacno oo dawladda aan garab la qabano oo diyaar dhalinyar ku soo abaabulna aan nahay oo qof kasta uu maskaxdiisa ka socdo oo wadanka aan wax u qabano dalkeena iyo diinteena. wallahi qof igu qasabtay ma leh, nin kasta ba aniga teeda maskaxdeedan ka socdaa dadkan walaalay kulliga isku mowqifaan. waxaan u diraa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi, waxaan ku codsanaynaa inuu si ugu dhaqsiyaha badan leh uu meesha nooga bixiyo. dhalinyaradan in badan carabka ku celcelinaya in ay muhiim tahay lagana maarmaan tahay in wadankooda wax u qabtaan qurbo joog iyo qaxootinimo ayna wax faa'iido aysan lahayn. Maxamed Jilani, SBC, Yemen, Adan.